بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala kelimaadkan inaan iraahdo i waafijiyey. waxaan rabaa inaan ka jawaabo su-aalo dhowra oo isku eg oo aada la ii soo weydiiyey oo ku saabsan xagga caqiidada towxiidka iyo islaamka. oo qofku wuxuu ku leeyahay urur hebel ka waran, sheikh hebel ka waran, urur hebel ka waran, sheikh hebel ka waran, mabda' hebel ka waran. yani diintu waxay noqotay wax lagu qiyaaso magac urur iyo magac sheikh, oo shiikhaas hadduu toosan yahay iyo hadduu xun yahay diinta saas ay noqoto, ama ururkaas maya lagama qaato diinka. sheikh iyo urur laguma miisaamo. waa inaad cilmi u yeelato kitaabka iyo sunnada, markaasaad ogaanaysaa cidda xaqa ku toosan. sida cali bn abi aalib uu yihi oo kale: icrif ilxaq tacrif ahlah. marka hore horta waxaad garataa xaqa garo, kadib baad garanaysaa cidda xaqa ehel u ah. laakiin hadba jamaacad haddaad ku boodboodo, waxaa ka imaanaysa marka dambe meel inaada ku sugnaan. xaquna tacadud ma leh, ma fara badna. xaqu waa mid, waxa badan waa baatilka. ma dhici karto intaasoo urur isgarab socda kulligood inay xaq yihiin, maba dhici karto. hal xisbi baa jira ilahay xaggiisa, xisbullah. xisbullahina ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay subxaanahu watacaala. ka soo baar qur-aanka kuwa alla uu yihi ulaa'ika xisbullah alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun. qur-aanka ka soo raadi, waxaa kuu soo baxaya dad xataa waalidkood iyo walaalahood iyo ilmahay dhaleen aan unjixinjixayn inay ka beri noqdaan oo ku inkiraan baatilkooda markay noqoto xuduudda ilaahay ama raacitaanka amarka ilaahay ama islaamnimada cidna aan la berberdhig, wax walba inay ku waayaan ogol. kuwaas alle xisbullah ku tilmaamay. u fiirso dhamaadka suurat mujaadala. qaala subxaanahu watacaala: laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaada allah warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaaئika kataba fii quluubihim اliimaan waأyadahum biruuxi minhu wayudkilhum janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha radia allahu canhum waraduu canhu ulaa'ika xisb اllah alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun. qur-aanka maalin walba waan akrinaa, aayaadkaas waan akrinaa, bal waa lanoo fasiranaa oo tafsiirkiisi waa la akriyaa. ilahay wuxuu yihi dad mu'miniina ma arkaysid oo ilaah iyo qiyaamaha inta rumeeyey haddana jeclaanaya cid ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay, waalidkoodba ha ahaadaan, aabbayaashood ama ilmahooda ha ahaadaan ama walaalahood ha ahaadaan ama jifadoodii soka ha ahaadaan. waa dadka kugu xiga, aabbaha, ilmahaagii, walaalaha, yani jifadaadii soka, cashiiradii, caa'iladii. ma jeclaanaysid hadday dhabkaa tahay inaad ilaahay iyo qiyaamaha rumaysay. maxaa yeele kuwa qoomkoodii ku yiri inaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah. dadkii bay ka hormariyeen. baraa'ada waxaa la hormarinaya bini aadamka. bini aadamka iyo waxa uu ilaahay sokadii caabudayo, yani shirkigii iyo mushrigii kee la horgooyey. aayaddu waxay hormarinaysaa mushrikiinta la horgooyey. inaa buraa'u minkum waayo, waa dadkii, waa qoomkii, waa qaraabadii, waa cashiiradii, waa jifadii, waa walaalihii, waa sukayihii. iyo wa mima tacbuduuna min duuni illah, waxaa ilahay sukadii caabudaysaana beri baan ka ah. shirkigii goormaa laga beri noqday? marka mushrikiinta laga beri noqday kadib. laakiin bilcaks, dadkan hadda waa isoo wada weydiinaya. qaarkood waxay yidhahan waxaan ognahay dadka qabuuraha caabuda shiikh waa mushrikiin waay, ama suufiya cumuum mushrikiin waay, ilahay keyrkiiba u yeertaan. dowladaha dimuqraadiyiinta kufaar waa, taaquud waa, ilahay kitaabkiisii diidan. ummadda inteeda kale maxaa laga rabaa?
kuwa asaga uu gaalada u yaqaano iyo kuwa kale uu muslimiinta u yaqaano ma dad col ahaa mase waa dad walaalo iswata. fiir si u gaaban yahay fahamkiisu u hooseeya markiiba. wuxuu ku dhahay dimuqraadiyiintii iyo dowladdii dimuqraadiyadda ahayd meeshii joogta waa joogtee kitaabka ilaah ciddaan ku maamulayn waa taaquud. saxiix. ilaahayna wuxuu amray in taaquud lagu kufriyo. dadka adeecsan ka waran baa tiri. markaasuu ku meermeeraya oo dadka ugaaska adeecsan haddii ugaaskii taaquud noqdo dadka adeecsan maxay noqonayaan? ma muslimiin taaquud adeecsan ba? bal fiiri meeshaas. kow haddii baarlamaankii iyo madaxweynihii iyo boqorkii dadka marka waddanka maamulayey uu taaquud yahay maadaama kitaabka ilaahay uu diidan wax ku maamulo, dadka adeecsan u sacabatumay iyo adeecsan ee ku faraxsan hogaankooda u arka iyagana ka war uu ka aamus. maxaa hadduu saa ogolaado dadka ugaaska adeecsan mushrikiin dee beeshii aabbaa soo gelaya, adeer baa soo gelay, jifadii baa soo gelaysa. inuu ka beri noqdana ma doonayo. xisbullaahi maha marka waa xisbu shaytaan. xaqii wuu gartay laakiin inuu raaco ma doonayo. dhanka kale waxay ku leeyahay ahli qabuur dadkii qabuuraha caabudayey ama kuwan yani soomaalida qubuuriyiinta u taqaan oo duldega maalba jiilaan iyo uweys iyo dad dhintay u yeeranaya iyo qulunquul u yeeranaya iyo muxuu ahaa awbarkhadle iyo heemaalayaal iyo cabdalle iyo cawareer iyo sheekh yuusuf diraad iyo ugaas diini iyo dadka u yeerta jinka qaarkood u yeerta mushrikiin waa markaa tirahda ma kugu inkirayo. laakiin waa mushrikiin walaalahooduna muslimiin yihiin buu ka wadaa asagu. hadday kuwaas mushrikiin yihiin waa dadka culimmadoodi waa suufiyadii. waa dhaqankii soomaaliyeed awowayaashan dhaqankooda kaas waa. xeerkana waa ku dhaqmayeen ugaas bay beesha hogaaminayey. dhanka kalena awliyaa la baryayey. saasaa muslimiin lagu ahaa. hadday sidaasu shirki tahay dadku maxay ahaayeen? waxaa u soo baxaysa ummadda agtarkooda mushrikiin ay ahaayeen. laakiin inuu ka beri noqdo ma doonayo. wuxuu rabaa inuu ku galgasho marka uu raadiyo shiikh xoogaa ka fujiya oo u neefiyo yidhaahda anagu dadka soomaaliyeed waa noo muslimiin, qofkan gaalnimo ku aragna mooye. markaasuu qaboobaya, geer buu gadaal u gashanaya. wuxuu leeyahy waa run dadku waa muslimiin wey maadaama ay shahaadanayaan oo tukanayaan. awalba kuwaad lahayd waa mushrikiin waa shahaadanaya waana suufiyadu ma ashahaataan mana tukadaan? waa shahaataan ma tukadaan waana kaa cibaada badan yihin weliba. waa soomaana xajka waa aadaan arkaanta waa la yimaadaan shirkina waa sameeyaan. ma qarsanta inay kufaar mushrikiin ay yihiin? haaba ku dhihi dadka adeecsanna oo ay culimmada u yihiin soomaali intooda badan. xaqiiqda markaa iska meermeeriso ayadoo kuu cad oo aad sidaa ku dhimata ka waran marka nafti malagu kuu yimaado oo lagaa qaado oo dabeedna ilaahay ku yidhaahdo aayaadkayga soo laguguma dul akhriso maada fahmin. waad fahamtay ahlu shirki maanta waad fahamtay laakiin waxaad diideysay qaraabadaad inaad ka beri noqotaad diideysay. in lagu caayo takfiir lagu yidhaahdo oo magaca mutatarif lagu yidhahdaad diideys. laakiin xaqiiqdu way kuu cadda. qaar jihaad u nasab sheeganayo dagaalamayaan ku niri ka warramasa waa shirki buu ku dhih. dadka adeecsan mushrikiintana kasaas ku fiirina xanaaqaya. maxaa ka dagaalamaysaa? mushrikiin inaad ka beri noqoto gaal u aqoonsatid ma rabtid. maxaa naftaada iyo waqtiga iskaga luminaysa? so ilaah dartii inaad u halganta ma ilaah naftaada umaada hurin. haa naftaadiba haddaad ogoshahay maxaad mushrikiin ugu dheganta maa sii days? arrintaa culimmadii kama hadal. ummadda soomaaliyeed xoogaa hoggaan khalada haysta maamulka taaquud ah. maamulka shareecada ilaahay diiday. laakiin shacabku shareecada waa ogol yihiin. waa artay gabdhuhu si ay u xijaaban yihiin. waa artay bisha ramadaan sida loo wada soomayo. waa artay masaajida si loo buuxinayo. dhalinyaro iyo rag iyo dumarba waa la cibaadeysanaya. miisaanka wuxuu saaray cibaado. waxaan weydiinayaa kuwaas markii nabiga alla soo diraya calayhi salaatu wasalaam magaalada maka cibaada ma jirin miya? quraysh ma iska taagtaagnaayeen? dad sanam keliya yaqaano wax kale aan aqoon mi ahay? may waa cibaadeysanayeen bal ilaahay bayba caabudayeen sanamna way ku darayeen.
waxay isu yaqaaneen alxumus dadka diintooda ku sharfana ilaahay doortay naxnu jiiraanu beyt illaahi bay oran jireen waa tawaafayeen kacbada beyt ilaahi bay u yaqaaneen magaca allahna ku dhaaranayeen markii nebigu yidhi baatil baad ku jirtaan qur'aankana ilaahay baa soo dejiyey ayayba yidhahdeen allahuma in kaana hada huwa alxaqu min cindika faamtir calayna xijaaratan min asamaa aw i'tinaa min cadaabin aliim say isula qumanaayeen ka warrama ilaahu qur'aankan hadduu xaggaaga yahay oo xaq yahay dhagxaan nagu soo daadi cadaab ah ama cadaab xaggaagaa noo keen cidda ay baryayaan waa alle way garanayaan qur'aanka inkirsa isla qumanaan darteed bay sidaa u yidhaahdeen nadar ibn xaaris baa sidaa yidhi intuu kacbada banaankeeda soo istaagay markaasaa alla yidhi wamaa kaana allahu mucadibahum wa anta fiihim alla ma cadaabayo adoo ku dhex jira wamaa kaana allahu yucadibahum wahum yastakfiruun haddana iyagoo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya alla ma cadaabayo istikbaarkooda waa maxay kacbaday tawaafayeen gufraanaka rabbanaa bay leeyihin waana mushrikiin shirki inay ka tagaan ma rabaan dembi dhaafka ay weydiisanayaani ma aha inay shirki ka tagaan shirkiga diin bayba u arkaan xaq bay u arkaan sida suufiyada awliyada in lagu tawasulo xaq ugu yaqaanaan ayay kuwaasuna in lagu tawasulo asnaamta xaq u yaqaaneen shacabkuna dadkan asnaamta maamula oo culimmadooda bay adeecsanayeen shacabkana dadka awliyada baryaya oo shuyuukhdooda bay adeecsan yihiin culimmadiina waa mushrikiin baad tidhaahdeen shacabkii culimmada taageersanaana waa muslimiin waxaad tidhahdeen hogaankii waa mushrikiin waa dawaaqiid shacabkii madaxda taageersanaana waa muslimiin khiyaaliga aad isku maaweelinayso intee la egyahay xaqu waa cad yahay famaada bacda alxaqi ila dalaal ilaahay baa sidaa yidhi xaqa maxaa ka dambeeya oo aan baadi ahayn waxaan u digayaa dadka caqliga u saaxiibka ah inay badbaadaan adduun iyo aakhiraba jecel xaqiiqduna u caddahay laba arrimood adoon ka xoroobin ilaahay uma hogaansamaysa mukhlis ma noqonaysa marka koowaad maqaalat annaas dadku waxay ku dhihi doonaan adoon ka xoroobin oon dan ka gelin oo aan in lagu caayo iyo in lagu ammaano aan dan ka gelin raalli aanshaha rabbiga keliya u hadafkaagu yahay maxaa yeele nebi maxamed baa lacay calayhi salaatu wasalaam kadaab baa la yidhi saaxir baa la yidhi masxuur baa la yidhi kaahin baa la yidhi shaacir baa la yidhi saabi baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad bini aadan warkiisa wuxuu ku dhihi doona aad ka baqayso weligaa ilaahay uma hogaansamaysid maxaa yeele basharkaasaa kula weyn waxay ku dhihi doonaan waa midda koowaad oo ikhlaaska kuu diideysa iyo baraa'ada iyo mabda'aaguna go-aan dhaba kaa noqdo ood ilaahay ugu run sheegto midda labaadna waxaa weeye waa inaad ilaalinayso kayaan ama mid urur ama mid culumo ama mid qabiil ama mid watan ummad isku xirana markaa aad xubin ka tahay baad ilaalinaysaa oo inaad ka baxdeed diideysaa iyagiibaa kula weyn ninka ictisaamka intaan maanta sheegay garanaya wuu garanaya wuu iga badiya laakiin inuu arrintaa qaato baraa'o qaato oo yidhaahdo taaquud iyo wixii aad adeecsan waa la israacinayaa mana walaalaysanayana qof ilaahay waxiday mooye oo mushrikiinta ka bari noqday hadduu sidaa yidhaahdo dee ururkiisii baa odhanaya takfiir baat laga yaabo dhaqaalo inuu isugu jiray oo qolo shayr la ahaa laga yaabo xaaskiisu inayba ayado xubin ka tahay ururkii oo iyada laftigeeda uu ka baqayo inay ku diido oo markaa maal badan iyo awlaad ku waaya halkaas laga yaabo saaxiibo waaweyn oo ixtiraamayo oo shaqooyin iyo wax ka dhexeeyaan ama ixtiraamka waa la isku duleystaa laftiga saaxiibka aad ku ixtiraamayso sheekh hebelka arrinta waa diidan yahay sheekh hebel weliga ha diido soo xaq maaha haa asagaa ma leeyahay sheikhow raac ilaahay ka baq inuusan ogoleyn baad og tahay markii loo sheegay arrintaas sanka biyo ka keenaya sheekha laftigiisa haddaad saas og tahay ha u jixin jixin marka labada arrimood ka xorowda marka kayaanka ummadda aad markaa ka tahay hadduu urur ka tirsan yahay qaar ururkooda difaacanay arkaysaa oo qaar xarakada ka tirsan ba waxaan ku niri ka warrama waxaad la dagaalamaysaa waa taaquud soo maaha haa taaquudkii waxa adeecsan ka warrama haddaad ka waddo shacabka soomaaliya waaba kuwaan dartood u halgamaynuu yiri oon rabno inaan ka dulqaadno taaquudka laakiin shacabku dowladdiisu adeecsan yahay waa masaakiin bay yidhahan yucdar
maskiin waaye la qalday. dimuqraadiyadda iyo xeer beegtadu kitaab ilaahay inuusan ahayn dadku waa wada garanayaan, shacab iyo mid kaleba. kow waa mustadcafo, waa la daciifsado saasuu ku ogolaada baatilkana ilaahay uguma cudur daaraya. ciddii cudur daaraysa ma adigaa marka. u fiirsada adig marka anta meel soo istato ummadda aada haw ka siinayso, boqolaal qof aad dilayso oo aad qarxinayso. anigu waxaan lahaa shucuubta dhinaca looga istaago, xaqa ha loogu yeero, yaan la dilin. war dadkan diinta islaamkaba ma fahmin, ha la fahamsiiyo, ha loogu dulqaato. yaa anagu taaganna maxaaban ku dila, maba u garanaya wax lagu dilaye. adna waxaa tiri inta u timid baad t n t dhex dhigta, t m hal baabuuro t m t n t kaasaa 200 oo qof dhimatay. ma u malaynaysaa ilahay inuusan ku weydiinayda kuwa masaakiinta iyo kuwa tuugsanaya ducafada iyo ummad meesha iska marayso warba ka hayn yaad dukum daakum ka dhigta. arrintaas ka warramaayo waa weydiiyey. qof walba waxaa lagu soo saarayaa buu yidhi wixii uu ku dhintay. kulla yubcathu calaa maa kaanuu caleyh. qof walba waxaa lagu soo saaray qiyaamaha wixii uu rumaysnaa. taa waa saas, waa saxde. ama diyaarad ha ku dhinto soo saaran, ama bad ha ku qaraqmo, ama hoobihi ha ku dhaco, ama qarax ha ku dhaco, ama gurigiisa sariirta jifa malaria ha u dhinto. maxaa lagu soo saaray qof walba? qof walba wixii uu ku dhintay buu la soo bixi. taas jawaab ma ah. wixii uu rumaysnaa iyuu la soo bixi. mid adi laga weydiinaya ma ah. adigu maxaa ku dishi? ujeedan lahaa oo nin baan cadowgan raadsanaya 200 oo qof u dishi, haddana isula quman tahay inaa saxsan tahay. marka jawaab ma hayo. dhankii baraa'adana jawaab kama haysid. oo taaquud iyo wixii raacin laga beri noqdana waad nagu inkirta. qaarkoodna baraa'adii waxay u fahmeen ba jihaadkii wax lagu hor istaagay. baraa'adu waa mabda' rabbaaniya. qofku ma islaamaya soon mushrikiin ka beri noqon. waa inaad tirahda sidii nebi ibraahim, wa actazilukum wamaa tadcuuna min duuni illahi. maxaa horeeya marka hore? wa actazilukum waa idinka go-a, idinka beri noqonaya kum oo adinkaa dadow. adinkii wamaa tadcuuna min duuni illah waxaad ilaahay sukada u yeeranaysaan. dadkiibaa horeeya. shirkiga iyo mushriga waxaa la horgoynayaa mushriga. ninka maanta raba islaamnimo inuu raaco marka ee soomaaliga ee afkayga garanaya waa inuu soomaalida ku yiraahdo inaa buraau minkum. qoomkiisa ka bilaabo jifadiisa weliba minkum oo dadka ah. oo mima tacbuduuna min duuni illah, waxa ilaah sukada aad caabudaysaan. ama awliye ay caabudayaan, ama ugaasi ay adeecsan yihiin, ama madax iyo adeecsan yihiin, madaxweyneyaal iyo baarlamaano, waxa isime iyo garaado waxay adeecsan yihiin ba ka dheh. atwaaqiid dhinac uga istaag markaa, ugu yeer dadka. gurigaagana ka bilow. haddaad islaamnimadii nabi maxamed uu la yimid aa rabta inaad raacdo. haddii kale nebiga waad ka leexatay calayhi salaatu wasalaam. huhaadaadaan iyo meelahan isku qanci. iyo inaad salaad tukato, sunnooyinka ilaaliso, xajka aado, afkaaga iyo adinkaaga laga nabadgelayo, gurigaaga iska joogto, cid aad col u tahay beri ka tahayna uusan jirin. dee baraa la-aantaasaa lagugu soo bixinaya qiyaamaha. maxaa mushrig in laga beri noqdo waa min asli diin. laa ilaaha ila allah baa lagu amray. laa ilaaha daaqud in lagu kufriyo amraysa. daaquudka haddaad ku kufroodo kii adeecsanaan aad wadato weli daaquudku maadan kufrin. haddaan idhahdo fircoon baan ku kufriyey, shacabkii fircoon adeecsanaana waa ii muslimiin, maxaan fircoon miyaan ku kufriyey markaa? maya. arrintan waxaan marka fariintaa u dirayaa dadka su-aalaha aada iigu soo celceliya oo ururo iyo jamaacad iyo shakhsiyaad i weydiya. war diinku waa qaala allahu qaala rasuulullah. xaqa hadduu ku wacdiya raac, ugana beri noqo dadka baadil ku jira. kadib haddaad yaa raacaysaa watabic sabiila man anaaba ilay. raadi kaas marka. watabic raac sabiila man anaaba ilay. cidda aniga iisoo laabatay ee wadadayda qaaday raac baa allay ku leeyahy subxaanahu wa tacaala. wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu. amarka ilaahay wey. waatan wadadaydii toosnayde raaca. walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih. wadooyin ha raacina ood markaa ku kala tagtaan ilah wadadiisa aad ka lexleexataan. hal wado wey. jamaace heblo lama dhaho. urur heblan lama lahan. tandiim hebel ma aha. wadan hebel ma aha. baasaboorkaasay wataana midabkaasay leeyihin ma aha. muslim waa kee? man cabada allaha waxdahu watabara'a min alkufri waطawaaqiid walmushrikiin.
ilaahay keliya ma caabudi karto adoon taaquut ku kufrin. maxaa yeele aayaddu waxay hormarisay taaquutka oo lagu kufriyo. in ilaahay la rumeeyo waxaa ka horeysa in taaquut lagu kufriyo. waxaana culamada ku fasiraan weelka buuxa marka hore waa in laga daadiyo. wasaq baa ka buuxday, biyaha rabtaa in lagu shubo ama caana aad ku shubato, wixii waa inaad ka daadiso, mayrto weliba, kadib baad wixii ku shubaysaa fiicnaa. qalbiga bini aadamku waa weelkaas. shirki baa ka buuxaya taaquut, marka hore waa inaad qubto horta. xeerka tolkaa ku jiray, wadaniyadii baa kuugu jirtay, qoomkii iyo tolkii baa kuugu jiray, ururkaagii baa kuugu jiray, jamaacadaad ilaalinaysa baa kuugu jiray. wixii waa inaad qubto. markaad qubto waxaad ku shubaysaa aliimaan billaah, adoon taaquut ku kufrin, oon mushrikiin ka beri noqon, muslim ma noqonaysid. weligaaba afka ka qir haddaa rabto. qaar badan oo qirayaad arkaysaa, taaquutka, kufriga, shirkiga dhahaya, asagana aan beri ka ahayn. inuu afka ka sheega waxba ma bedelayso. waa inuu ficliyan u muujiyo xaqa, raacid buu rabaa. samicnaa wa atacnaa waa la isku daray. in la maqlo xaqii marka hore, kadibna la raaco. samicnaa wa sakatnaa maaha. waan maqalnay waana ka aamusnay, waxay la mid noqonaysaa samicnaa wa casaynaa bay la mid noqonaysaa. xaq waa cad yahay. ninkii ilaahay la maagaana fahmaya oo qaadanaya. halkaa wadaana bannaan. inaad baraa'atu min ashirki wa ahlihi ka diin dhigato waa diintii ambiyada, waa diintii nabi maxamed iyo ambiyadii ka horreysay calayhi salaatu wasalaam. wadadaasna aad ku toosnaato, cid walbana uga leexato waxa ay ku jiraan. labadii arrimood ee bini aadanka ku hayay meeshana aad ka xorowdo. marka koowaad waa maxay? dadku maxay ku dhihi doonaan inaadan dan ka gelin. marka labaadna kayaan inaadan ilaalin, mid urur iyo mid jamaaco iyo mid xaaskaaga iyo mid caruurtaada iyo mid awlaadda, maalkaaga iyo qarankaaga. waxaas intaad ilaalinayso ilaahay ma raali gelin kartid. waa in reerkaaga kugu raaca. ma la waayo nabaday, lakum diinukum waliya diin. tawxiid ciddii kula qaado, lakum diinukum waliya. soco weligaaba, keligaa maad soo hartid. allo maad keligaaba soo hartid. xaqu saas u cad yahay. ilaahay keliya musharica, keligii baana xaakim ah, keligii baa macbuud loo yeerto, la baryo, la magan galo, oo dhibka loo sheegta inuu naga dulqaado subxaanahu wa tacaala. laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah, lahu lmulk walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir. wahada huwa alislaam bicaynihi, faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur, wallahu calaa ma aqulu wakiil.